kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal anigoo Cabdullaahi Axmed ayaa idin soo jeedinaya qodobada aad ku daawan doontaan caawa waxa ka mid noqon doona dagaal beeleed aad u falxun ayaa ka socda degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyada oo xiisada colaadeed ee u dhaxaysa maleeshiya beeleed deegaankaasi dega ay wali taagan tahay waxaan idin haynaa waraysi ku saabsan arrintaasi qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona tirada dadka Soomaalida ee cudurka coronavirus uu geeriyoonaya waddanka Britain ayaa sii kordhaysa iyadoo tiro 20 ku dhow laga soo warinayo magaalooyin ka tirsan UK qaybaheena dambana waxaad ku daawan doontaan waraysi ku saabsan hadduu alla idmo maxay tahay sababta uu saldhigan leeyahay maamulka gobolka Hiiraan kulanti wanaagsan mar kale arrinta waddanka Britain iyo xanuunka coronavirus-ka oo Soomaali badan ay u geeriyoodeen waa uu inoo soo socdaa iyadoo oo aynu warbixin idin kaga haynaa si yeeshee waxaan ku hormarayaa Walaweyn dagaal beeleed aad u qaraar ayaa ka dhacay deegaankaasi iyada oo dilal foolxunna sidoo kale ay ka dhaceen deegaankaasi waa degmada Walaweyn iyo deegaana ku xiran maleeshiya beeleed deegaankaasi maleeshiya beeleed ku abtirsada laba beelood oo deegaankaasi wada dega ayuuna dagaalkan u dhaxeeya dad 15 qof qiyaasti gaaraya ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen dagaalkan dadkaasi oo qaarkood si xun loo dilay sida wararka aynu ku helnay haddaba waxa stuudiyaha igula sugan xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo deegaankiis uu yahay halka ay mashaqadu ka taagan tahay Dalxa oo soo dhaweynaya marka hore inta kadib maxaad kala socotaa dagaal beeleedkan ka soo cusboonaaday Walaweyn bismillaahir rahmaanir rahiim Universal marka hore waa salaamaya Abdullaahi adiga iyo farsamayaqaanka sidoo kale dadka Soomaalida ee naga maartay socda hawadana meel kasto ay joogan gudaha dalka iyo dibadiisa waxaan idin leeyahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaikum salaam runtii dagaalka maanta iyo shalay sida maartay foosha xun uga dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan iyo dalka guud ahaan oo meelo kale laftirkooda runtii in aan tilmaano waajib ay tahay oo kisamaayo oo ayadana aan runtii wax aan ummadda Soomaaliyeed ku wanaagsanayn maqalkeeda iyo araggeeda iyagana ay ka dhacayaan oo intaba ay sababayaan dilal aad u qaab daran oo runtii waxashnimo si aanan runtii diin islaan iyo ma aragtay si ma aragtay insaannimo ku jirta oo aan dhaqanka ma aragtay suuban ee ummadda Soomaaliyeed ee lagu yaqiinayna ka baxsan ayay dagaaladaasi aad moodaa inay iyagu ay u dhacayaan waana wax aad iyo aad runtii laga xumaado oo aan ummadda Soomaaliyeed aan ku wanaagsanayn oo dad muslin ah oo dad ehel ah oo dad ay ka dhaxayso ma aragtay caqiida ka soko yani dhaqan iyo ma aragtay iyo hidde aanan runtii midna ma aragtay aanan cudurdaar u noqon karin in qof muslin ah walaalkii muslin ah inuu soo qabto ama uu gowraco ama uu gubo waxaasoo dhan ay ka dambeeyaan ficilo oo aad moodid inay kaga faa'iideysanayaan dadka Soomaalida ee meelaha hadda waxa kan ay ka dhacayaan dad iyagu marka dana gaara ama ujeedooyin ka fogfog dadka isku go'aya ama isku baaba'aya wax ka duwan iyaga hadafkooda u yahay ayna rabaan inay ku xaqiijiyaan oo dagaaladaas bay aad moodid inay ayagana dan ay bidayaan si ay ku gaaraan maartay runtii yoolkooda taasoo aan aad uga xunnahay marka saas leedahay maxaad ula jeedaa xildhibaan Dalxa ummadani way wada noolaan jireen waddankan dadka Soomaalida marka laga soo bilaabo taariikhdeeda fogfog haddii ay dagaalamaan xataa dhinaca loo badiyo dagaalada waxay ahaan jireen dhulalka daaqsimada badi xoolo dhaqatada oo iyaga inta badan dirirtooda ay ku saleysnaan jirtay waxa la yiraahdo ma aragtay daaqa oo ama ceelasha lagu diriro ama xoolo la kala dhaco oo badanaaba ayaga ay ahaan jirtay
waxyaabaha haddii soomaaliya diraac la sameeyo la odhan jiray soomaaliyada dhaqan violence ku dhisan ama waxaa la yiraahdo thaqaafat alcunf ayaa dhinaca maaragtay marka loo kaco meelaha badi ee soomaalida caanka ku ahay dagaalada ayaa loo nisbeyn jiray. laakiin maanta goboladii deganaanshaha iyo ku caanbaxday nabadda dadka wada noolaansho oo xataa magaca qabiil layska dhowri jiray oo laysugu yeeri jiray magaca deegaaneed ayay maanta waxay noqotay goobo oo ayaga colaadeed oo looga faa'iidaysanayo ama dano maslaxad dhaqaale ama mid siyaasadeed ee baryahan dambe oo ayaga aan arkayno inay maaragtay loolan loogu jiro. arrimahaas oo dhan ayaa waxay ka hoosgareeyeen dadkii isjeclaa ehelka ahaa walaalaha ahaa in ayaga madaxa la isu geliyo. kolba ma cadda meesha aad u jeedo xildhibaan Dalxa, laakiin waxaan ku soo koobaynaa guud ahaan sida hadda wax u socdaan waa si dabcan aan u wanaagsaneyn guud ahaan Soomaalida iyo bulshada deegaanka wada degta. waxaa la soo warinayaa dilal foolxun in ay deegaankii ka dhaceen. maxaa tilaabaha oo ilaa hadda adiga iyo xildhibaanada kula midka ah ee deegaanka ka soo jeeda aad qaadeen? runtii arrin horta xildhibaan iyo maaragtay dad magacyo maaragtay iyaga loogu yeero ama ha noqdo mid xileed ama ha noqdo mid iska caadi ama arrintani waa arrin mas-uuliyad wadareed oo collective responsibility ay tahay oo dhammaan loo baahan yahay inay ka qayb qaataan. cuqaasha oo aan maanta ugu horeeyaan hogaamiye dhaqameedyada ay culimaa udiinka ay maaragtay ka mid yihiin ay waxgaradka iyo runtii ragga iyo maanta iyo haweenka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada maaragtay runtii waxbaratay inta laysdhihi karo allahuma hadday ganacsato ay tahay intaba waa wax ayaga in laga qayb qaato loo baahan yahay. iyo dowladda oo haddii ay tahay dowladda dhexe iyo midda maamul goboleedka oo ayaga koonfur galbeed hadda bidaad marka laweyn la yidhaahdo ama jubbooyinka haddii la yidhaahdo intaba yacni loo baahan yahay mas-uuliyadda wadareed in la wada guto oo dadkaasi la kala dhex galo waxa ayaga ay isku dilayaan hoos loogu daadego. tiina gaar ahaaneed iyo wakiilnimadeen annagu wakiilnimadeenu horta ilaahay subxaanahu watacaala markuu la hadlayay maaragtay nebi nuux maaragtay dadkiisa iyaga badi wuxuu wanaaga uu sheegayay markii ay maqli waayeen calaalcalkiisi ayaa waxaa ka mid ahayd rabbi inii dacawtu qowmii leylan wanahaaran falam yazidhum ducaaya ilaa firaaran. rabbi ow aniga dadkayga har iyo habeen waan ugu yeeray inay diinta taqwada alla ka cabsiga inay ayaga waxaasoo dhan inaga u hogaansamo laakiin waxay ka faa'iidaysteen intaasoo dhan ma jirto ilaa inay iga ordaano ama ay ka jeestaan oo dhabarka ay aadiyaan mooyaane. horta ninkii ilaahay toosiya ee alla yaqaano oo iimaan leh ayaa wixii loo sheegay ee waana ayaa qaata. laakiin waxani waa wax fidno oo ay ka dambeeyaan dad fidno wadayaal asaan kuu sheegay. walfidnatu naa'imatun lacana allahu man ayqadaha buu yidhi ilaahay. fidno way hurudaa ninka toosiyana naclad eebaa ku taalo. ma carab dhabi kartaa dadka aad waa ku soo celcelisay waxaan ognahay maleeshiyada beeladeena dagaalamayaan dadka aad leedahay way ka dambeeyaan ma inoo sheegi kartaa innaga dadkana daawanaya? horta arrin iyo haddii ay falal ay meel ay ayaga ay ka imaanayaan ama ay ka dhacayaan iskama yimaadaan oo ma aha waxsamada ilaahay maaragtay iyaga uu roob ahaan uu soo raaciyo dad uma bani aadan ayaa samaynaya. bani aadamkaasi dano kala duwan ayaa waxaa laga yaabaa asagoo kan fidnadaasi isaga ka dambeeya ana waxba ka soo gaaraynin inuu adeegsado sidii caadi ay ahayd ee Soomaaliyaba marka iyada isbaabi'inaysay ee aan ognahay wixii dagaalo sokay la soo maray dad unbaa dano ayaga ay leeyihiin inay ku gaaraan ayay dhalinyarada Soomaaliyeed iskugu go'aysay ayaa xaabo laga dhiganayay wax ka baxsan miyaa ka dambeeyaad leedahay? طبعا dadkan aniga waan garanaya magaaladayda aniga aan ku dhashay Walooy oo aan ku barbaaray oo aan maartay aniga aan wax ku bartay. dadkan xataa hadday isqabtaan dagaaladooda heerka noocan oo kala ma gaarsiisnaan jirin. maray xoolo dhaqato oo beer ayaga si sharci darra oo aan nidaam ahayn alla ka cabsi oo ayagana laftirkooda oo habeenkii inay seexdaan ummadda loogu talagalay ayaga maalintii
intay seexdaan habeenkii ay socon jireen oo wajacalna leyla macaashan Waay. wajacalna nahaara maaragtay libaasan ayaga ay u bedesheen oo halkii wajacalna leyla libaasan wajacalna nahaara macaashan ay ahayd oo xoolaha habeenkii socdo oo beero ay daaqayaan oo dagaallo ka abuurman ay fidna waan arki jiray Waay. laakiin middan hadda ee genocide-ka ah ee liajli waxyaabo fara badan ee meesha kaaga dhex muuqanayo oo Waay. ama dhaqaale lagu raadinayo Waay. oo in ama lagu raadinayo maaragtay waxyaabo kasii duwan ee laysku muujinayo oo hadaf siyaasadeed Waay. meesha soo geli karto Waay. arrimahaasoo dhan haddana weliba sidii federaal loo sheegay iyo sidii maaragtay waxyaabo kala duwan nin Waay. walbow meel maaragtay adiga ka muuqo oo iyada ay u bilaabatay Waay. in waxyaabo fara badan ay abuurmayaan oo aan u Waay. jeedno weliba gobolladii nabadda ahayd in maaragtay faraha lagula jiro waay dabcan diyaar uma tihi sida muuqata inaad tiraahdo qofka ama kooxda ka dambaysa afkaaga Wa- anfur ilkaaga antiriya ma waay arrinta siday hadda u muuqato xildhibaan dalxa baaq kuma filna deegaankii colaadii way taagan tahay dadkuna way isdilayaan ma tegaysaan oo diyaar muuti inaad goobta inta tagtaan adiga iyo dadka kale ee matala deegaanka iyo cid aad kaashanaysaanba dowladda dhexe iyo maamul goboleedkaba ha ahaatee si arrintaa loo xaliyo haddii fursadeeda nala siiyo maxaad ula jeedaa fursadda wax kasta marka adiga lagu dhaqaaqayo waxay leedahay hanaan iyo qaab iyo ku talagal iyo cid maaragtay markaa mas-uuliyadeeda ee ayada arrintaasi waay dhabarka u dhigata gurigaagii oo gubanaya cidda aad ka sugayso inay kuu ogolaato ama aad marti uga tahay ayay tahay daminta dabka ka socda guriga gubanayo ma aha in guryo kale lasii gubo gurigaasi meesha uu ku gubanayo in lagu damiyo debka dad bay dan u tahay dadna in guryaha kale ee ayaga dariska la-aana inuu sii gaaro ayay dantooda ku jirtaa marka labada dan ee isdiidan meesha ay ka baxaan dadka jecel inay wax nabdeeyaan keliya loo daayo waay iyo dadka ee ka go-do talada ee sida dhabta ee runta iyo xaqiiqadana waxa laysku hayo ee u abaaraya ee aan munaafaqaynaynin ayaga la siiyo janiska Waay. dadka oo aanan iyaga waxa isku haystaan qaarkooda oo ay ka yihiin maaragtay innocent Waay. si ay u nabadgalaan magartay ugu dambayn taladaadu maxay tahay xaaladdii waad u jeedaa kuma warli'id dhibkii waa taagan yahay halka maxaad u aragtaa halka haddaanan xaajadu waxaa la yidhi sida dabada ari loo faydin lagama gaaro xalka maaragtay dhabtiisa meesha ay wax ka quransan yihiin aniga marka aan kuleeyahay iskama iman waxani waxaa horta waxay soo xoogeysteen wixii sagaashameeyadii ka dambeeyey nidaamka ee soomaaliya ee hadda dhaqankii iyada lagu yaqiinay ee bedelay ayaa waxay tahay han fara badan oo soo baxay ee keenay inay bulshadii shalay ee ku walaalowday deegaan ama wax weliba oo ayaga wadaagi jiray in maanta loo kala saaro Waay. wejiyo fara badan ayagoo laga rabo dana siyaasadeed ama mid dhaqaale in lagu gaaro walla weyn maanta qabiilka waa laga dhowri jiray dadka meesha joogo waxaa la iska oran jiray 5 caleemood maalan waxay oga dhowrsadeen ayagoo 5 qabiil ah in magacaasi ay ku midaysnaadaan oo aan qabiilba meesha aan qabiil kale maartay uusan ka orinin markaad afgooy aad timaadid 5 gambar baad maqli jirtay haddaad dhulka ay qoryoolay iyo aadid 5 gamaas baad maqli jirtay haddaad dhinacyada 8 gamaas hurgub yacni waxa waaye dadkii qabiilada ka dhowrsan jiray shabeellooyinka marka aadid shabeellaha dhexe waxaad maqlaysa 6 iyo 2 anke koonfuro dhan markaad fiirisid markaad maqashid digil iyo mirifle ama 9 iyo 8 yacni waxa waaye halka qabiil mutaxan oo soo jeeda lama maqli jirin koonfurta waxay ahayd meel xadaarad iyo ilbaxnimo oo qabyaalada ka fog ee laysku soo dhaweeyo reerkaad rabtid xataa inaad ka mid noqotid caawa waad u bundubanaysay sidaasaad waxaad oga mid noqonaysay reerka allaahuma haddaad doontad beri ugaas u noqo laakiin hadda waxaad timid war adiga intaad ka soo jeedaa adiga asalkaaga yuu ahaa adiga waxaad ahayd adiga halkaas aniga awoobahii ku aasnaa anigaa meeshaan kar ka yiri anaa babababa yacni waxaasoo dhan waa nidaam la rabo federaalka iyo siyaabaha qaabka daran ee ummadda soomaaliyeed ee fasiraadeeda aanan aqoonin loo soo dhex dhigay wuxuu ku noqday suicide taasaana in badan ragga siyaasiyiinta u badan iyo ragga dhaqaalaha sida xun ku raadiya ee ayaga damacooda keenay in gobolladii barwaaqada ay ahayd inay ayaga soo luga dhigtaan wax badan oo fidna ayaga ay ka dambeeyaan inay ku kicinayaan qabaa'iladii shalay deganaa xildhibaan
maxamed cumar dalxa ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan ahaanna ka soo jeeda Walaweyn oo aan ka wareysanaynay xaaladda deegaankaasi oo dagaal beeleed aad u xun uu ka taagan yahay isla markaana ay ka dhaceen dilal aad u foolxun